السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن دمان صاحبada ku xiran channelka Rajadii Fanka aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada sida quruxda badan ugu soo biiray channelka Rajadii Fanka. sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaynaa saaxiibada mar walba halkan ugu xiran annagoo jecel inaan update ka dhigno oo waxyaabaha markaas cusub aan u soo gudbino saaxiibadana ku xiran channelka Rajadii Fanka. waxyaabahaas oo ay qayb ka yihiin xaaladaha ama marxaladaha markaas taagan iyo sidoo kale arrimaha fanka iyo fanaaniinta. maanta waxaan idin wadaa muuqaal cusub. muuqaalkaasi waxa uu noqon doonaa haddii Ilaahay idanka ka dhigo ninkii khaniiska ahaa ee ku noolaa dalka Finland oo arrin mucjiso leh ay ku dhacday. subxaanallah, Ilaahay ayaanu ka magan galnay. arrinkaasi ayaan maanta idin wadaa. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee fadlan muuqaalka like saar, calaamadda subscribe-tana taabo, gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto saaxiibada ku xiran warbixinada aynu halkan soo dhigno. haddaba daawadayaal, ninkan ayaa waxa uu ahaa nin Soomaali ah oo ku noolaa cariga Finland. ninkan ayaa inta badan baraha ay bulshadu ku xiriirto waxa uu ku soo bandhigi jiray ama uu ku baahin jiray muuqaalo aan indhaha u roonayn, kuwaasi oo aad ay u dhibsan jireen dadka ku xiran baraha bulshada. ninkan ayaa waxa uu ahaa nin ku faani jiray sida uu yahay iyo sida uu ku dhaqmayo, isagoo muuqaalo uu dadka qaar ku aflagaadinayo uu ku soo bandhigi jiray baraha uu ku isticmaalo baraha ay ku xiriirto bulshada Soomaaliyeed. ninkan ayaa waxa uu ku nool yahay dalka Finland. arrin mucjiso leh ayaa qabsatay, rabbi ayaan ka magan galnay. ninkan ayaa isaga oo dhex maraya suuqa weyn ama meel supermarket ah waxa uu isla markiiba dareemay ama uu noqday qof isku dhex yaaca oo waxba aan kala garanayn. ninkan ayaa waxa uu yimid booliskii deedna marka ay damceen in ay qaadaan oo ay geeyaan saldhigga waa uu ka biyo diiday. mar uu baabuurka iska soo tuuro iyo mar uu dhulka isku dhajiyo ayay noqotay. ninkan ayaa qabashadiisa ama in ay dhibaato soo gaarto waxay noqonaysaa mid aad ay ugu farxaan bulshada Soomaaliyeed, taasi oo ah in ninkan uu yahay mid ka baxay dhaqankii diinta Islaamka lana yimid ficilo kale oo u gooniya. taasna waxa ay tahay mid aad ay ugu farxayaan bulshada Soomaaliyeed. haddaba daawadayaal, aynu isla daawano muuqaalkii lagu soo bandhigay baraha bulshada ninkii khaniiska ahaa oo isku dhex yaacay. muuqaalkaasi aynu isla daawano.